halkan waa akademiyada farqurxinta ee Amiir waxa ku sugan arday fara badan oo galaasyo kala duwan sugaysa qaarkoodna hadda ku jira galaaska waxay halkan u yimaadaan inay bartaan farqurxinta qaarkood waxa ay ka baxeen heerarkii koowaad ee waxbarashada magacayga macallin hadaad ii barataan efna waa taqaanaan elna waa taqaanaan si ay elina gaarin laakiin ii waa taqaanaan ii waa kana macallin qoraalka aad qorto oo noqdo mid qurxoon waxa uu qof walba wax aqrin karo u sahli karaa inuu si fudud u aqrin karo balse taasi waxaad ku gaari kartaa inaad marka horeba aad soo barato farqurxinta macallin Cabdifataax Ibraahim oo ku magac dheer Amiir waa macallin si maalinle ah u bixiya fasalla farqurxina taasoo ay ku xiran yihiin arday fara badan oo qaarkood uga yimaada degmooyinka kala duwan ee magaalada Muqdisho kuwa oo qaarkood dhameeyay jaamacado iyo kuwa hadda shaqeeya balse halkan u yimid in fartooda ay qurxiyaan macallin Amiir ayaynu weydiinay waxa ay muhiim u tahay qof walba oo wax qori kara inuu fartiisu noqoto mid qurxoon iyo waxa ku qasbay inuu furo dugsi lagu dhigto farqurxinta runtii baahi badan oo jirto oo dhanka farqurxinta iyo Soomaaliga markaan aragnay ayaan isku hawlnay inaan muxuu ahaa akademiyadan furno ilaahay baa mahad iskale maanta waxa ka baxay kumanaan arday oo bartay farqurxinta iyo saxiixada iyo wixii la mid ah waxaan kana marka ajandii loo asaasay hadafyadii loo asaasay qaybo kamid inaanu gaarnay maanta macallin Amiir ayaa ugu baaqay dawladda Soomaaliya inay farqurxinta ku darto manhajka waxbarashada si ay u noqoto maado lagu dhigo iskuulada dalka manhajka waxbarashada waxaan ku baaqayaa si gaar ah iskuulada iyo jaamacadaha in hal semester ama laba semester kamid ay qaataan farqurxinta ardayga soo saarta jaamacadan la hadlaya ardayga ay soo saaraan hadii wixii uu qoraan la akhri karin wax saameyn yeelama cilmigiisu marka iskuuladana sidoo kale in ardayda ay ka dhisaan farqurxinta oo xiisooyinka la qaato 7 xiisa ama 6 xiisa la qaato xiisa kamid ah looga dhiga hatta haday qaadan karin 3 bil 4 bil marka hore in base laga soo dhisayo qof farqurxinta lagu daro waan ku talinayaa hadii ay macquul noqoto shukr Caabi Cabdi Risaale TV